Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kulatu wanaagsan dawladashada qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta naga mudan ku soo dhawaada wararkeena gaashaan wadani Soomaaliya TV waa 15 bisha Agoosto sanadka 2021 qodobada wararka dawad doontaan hadii Allah awood dalawiilo ogolaadana waxa qayb ka xaaladda aloorsan ee ka jirta wadanka Afghanistan iyo sidoo kale ciidamada Taliban oo gacanta ku dhigay caasimadda Afghanistan ee Kabul. diyaaradaha qomaatiga u kacay wadanka Mareykanka ayaa soo gaaray safaaradda ay ku leeyihiin Afghanistan gaar ahaan caasimadda Kabul halkaas oo laga dadguranayo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka wadankaasi Mareykanka ayaa si rasmi ah u soo diray ciidamo aad u tiro badan si ay halkaasi ay uga soo baxaan saraakiisha ka joogta safaaradda Mareykanka ay ku leeyihiin wadanka Afghanistan gaar ahaan caasimadda Kabul. wararka rasmiga ah waa naga soo gaaray wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in ciidamada hogaaminayana jamhadda iyo sidoo kale Taliban ayaa la sheegay in ay u suurta gashay in muddo 2 isbuuc ay gacanta ku dhigaan caasimadda Kabul ee wadankaasi Afghanistan. Mareykanka ayaa sheegay in ay aad uga xuyeen talaabadan ay qaadeen ciidamada Taliban isla markaana sida rasmiga ah ay gacanta ugu dhigeen caasimadda Kabul ee wadankaasi Afghanistan. saraakiilka sare oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in ay aad uga xuyeen in caasimadda Kabul ay dalkaas Afghanistan ay gacanta ku dhigaan maleeshiyadka Taliban oo muddo 2 toddobaad dagaal kula jiray ciidamada wadankaasi Afghanistan. wararka rasmiga ah caawana soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in gabi ahaanba ay la wareegeen aqalka madaxtooyada ee dalka Afghanistan oo ku taala isla caasimaddaasi Afghanistan ee Kabul. ciidamada Taliban ayaa gudaha u galay. madaxweynaha wadankaasi Afghanistan ayaa gabi ahaanba ka baxay wadanka isagoo gaaray wadamo kale oo waxaana wararka rasmiga ah soo gaaraya ay sheegayaan in gabi ahaanba xaaladda wadanka Afghanistan xilligan ay tahay mid aad u qalifsan. warbixinada naga soo gaaraya wadankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Taliban ay dagaal xoogan ay la galeen ciidanka Afghanistan isla markaana ay gabi ahaanba ay jabiyeen waxaana ay u suurta gashay in muddo 2 toddobaad ay gacanta ku dhigaan magaalada caasimadda oo ahayd Afghanistan ee Kabul. waxaa jirta in Mareykanka oo ciidamo fara badan oo ka jooga wadankaasi gaar ahaan Afghanistan caasimadda Kabul ay gabi ahaanba ay kala baxayaan iyagoo ka cabsi qaba in dagaalka ka socda qaybo kamid ah dalka Afghanistan ee u dhaxeeya ciidamada Taliban iyo sidoo kale ciidanka Afghanistan. waxaana la sheegay in caasimadda oo kaliya ay ka harsan yihiin deegaanada ay rabeen inay qabsadaan ciidamada Taliban isla markaana ay u suurta gashay inay gacanta ay ku dhigaan. warbixinada naga soo gaaraya wadankaasi Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiil sarsare oo u hadashay ciidanka Afghanistan ay sheegeen in ay dagaalka ay gula jiraan Taliban oo sii socon doono ilaa dib ay u soo ay gacanta ugu dhigaan caasimadda Kabul oo hadda gacanta ay kula wareegeen dagaal qaraar oo dhaxmaray ciidamada Taliban iyo sidoo kale ciidamada dalkaasi Afghanistan. warbixinada rasmiga ah caawana soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in gabi ahaanba ay la wareegeen aqalka madaxtooyada iyo sidoo kale aqalka baarlamaanka ee wadankaasi Afghanistan looga aramiyo oo ku yaala isla caasimadda Kabul ee dalka Afghanistan. ciidamada Taliban saraakiil sarsare oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa hogaaminayay ciidanka Taliban ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay gacanta ay ku dhigaan caasimadda Afghanistan ee Kabul isla markaana ay xilligan ka soo dhax muuqdaan aqalka looga aramiyo dalkaasi Afghanistan gaar ahaan caasimadda wadankaasi. waxaana wararka rasmiga ah soo gaaraya caawadana ay sheegayaan in gabi ahaanba ciidamada oo aad u hubeysan ay gabi ahaanba ay ka soo dhax muuqanayeen madaxtooyada dalka Afghanistan gaar ahaan caasimadda Kabul. wararka rasmiga ah soo gaaraya caawadana ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha wadankaasi Afghanistan Ashraf Ghani oo gabi ahaanba uu ka baxay wadanka isla markaana uu wadamo kale u gaaray. saraakiisha hadashay ciidamada Taliban ayaa sheegay in muddaaba ay ku raad joogeen si ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada caasimadda Afghanistan ee Kabul isla markaana ay u suurta gashay in ay muddo 2 toddobaad gudahooda ay gacanta kaga dhigaan ciidamada wadankaasi Afghanistan. magaalada Kabul ee caasimadda ayaa waxaa jirta in ciidamada Mareykanka ay joogay in xilligan si rasmi ah looga dadguranayo iyagoona ka cabsi qaba in ay dagaal ay la galaan ciidamada Taliban
oo gebi ahaanba la wareegay ammaanka iyo sidoo kale gebi ahaanba magaalada caasimadda u ahayd Afghanistan ee Kabul. wararka rasmiga ee caawadan naga soo gaaraya wadanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Afghanistan oo gebi ahaanba ka baxay caasimadda Kabul ay gebi ahaanba ay xilligan ay soo abaabulayaan dagaal ka dhan ah ciidamada Taliban oo xoog ku galay aqalka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada wadankaasi Afghanistan gaar ahaan caasimadda wadankaasi Afghanistan ee Kabul. waxaa la sheegay in madaxweynuhu ilaa haatan uu warbaahinta uusan ka soo muuqan isagoo oo ka cabsi qabay inay gacanta ay ku dhigaan ciidamada Taliban oo gudaha u galay madaxtooyada wadankaasi Afghanistan oo ku taala isla caasimadda wadankaasi ee Kabul. waxaa jirta in saraakiisha oo qaarkood la hadlay warbaahinta ay gebi ahaanba ay si rasmi ah uga hadleen xaaladda cakiran ee xilliga ka jirta Afghanistan gaar ahaan caasimadda Kabul. warbixinadii ugu dambeeyay ee caawa naga soo gaaray wadanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in ay madaxtooyada ay la wareegeen ciidamada Taliban ilaa haatan ay ku hareeraysan yihiin ciidamo aad u tiro badan oo ay hogaaminayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamadaasi oo sheegay in ay mar labaad ay qabsan karaan deegaano kale oo hor leh maadaama ay caasimadda Kabul ee Afghanistan xilligan ay gacanta ay ku dhigaan. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Taliban ayaa warbaahinta ka soo muuqday iyaga oo xilligan goobta ay ku sugan yihiin ay tahay aqalka madaxtooyada ee wadanka Afghanistan lagu arrimiyo ee ku taala Afghanistan. waxaana wararka inta ay ku darayaan in ay jiraan in ciidamadii ku sugnaa ammaanka sugayay madaxtooyada wadankaasi oo ku taala caasimadda Kabul ay gebi ahaanba halkaasi lagu baabiyay. ciidamada Taliban ayaa soo laxaadaystay iyaga oo buddooyinkii dambana si rasmi ah ugu raad joogay inay gacanta ku dhigaan madaxweynaha wadanka Afghanistan oo ku sugnaa isla caasimadda Kabul oo xilligaasi gebi ahaanba ka baxsaday goobtaasi. waxaana jirta in saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka Afghanistan oo ku sugnaa madaxtooyada ay gacanta ku dhigaan ciidanka Taliban isla markaana aysan waxyeello gaarsiin. qaarkood ayaa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gebi ahaanba ammaanka guud ee caasimadda Afghanistan ee Kabul ay gebi ahaanba ay la wareegeen ciidamada Taliban. waxaana jirta in ay saraakiishaasi ay gacanta ku dhigaan ciidanka Taliban ee ku sugnaa aqalka madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka Afghanistan ee ku taala caasimadda wadankaasi Kabul. oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xilligan ay gacanta ay ugu jirto ammaanka guud ee caasimadda Afghanistan ee Kabul ciidamada Taliban oo xilligan si rasmi ah u la wareegay gebi ahaanba ammaanka guud ee caasimadda Afghanistan ee Kabul. warbixinteeni caawa waa naga intaa.